yaa iska lahaa horta filimkan writingkiisa filimka dambiile dambi baaris writing and director aniga ka markii laga soo tago jilinka howsha kale filimka aniga qabanayo sheek ahaan hadii filimka ka dulmaran waxay tahay ama ku dulmarane filimka wuxuu ka sheekeynayaa wuxuu u dhaxeeyaa kooxo burcada iyo sidoo kale dhalinyaro ka mid noqonaya ciidamada dambi baarista dhalinyarada marka howlgalka loo xil saaraa wuxuu noqonayaa inay soo afjiraan koox burcada magaalada qaska hayso howlgalkaas intii ay ku guda jiraan waxay ku weynayaan hal askari oo ka mid ah dadka dabcan loo xil saaro howshaasi ugu dambeyn laakiinse guusha ahayd inay soo afjiraan way soo afjarayaan oo dabcan guusha ugu dambaysa ay gaarayaan marka filimka sheekadiisa waa intaas inkastoo waxa kale oo filimka ku jira qayb dabcan jacayl ah oo atriishada filimka iyo wiil kale ay matalayaan balse wiilka filimka ku matalaya oo la yiraahdo Nuur ka mid ah ciidamada ka mid ah burcadka laakiinse filimku wuxuu yeelayaa qayb dareen ah oo jacayl ah maadaama filimka intiisa badan ama rulkiis koobaad uu yahay action laakiin ninkan wuxuu u bedelayaa dabcan jacayl soo waxaan ujeedkan wuxuu yahay in dabcan filimku uu noqdo balance jacaylna laga helo actionna laga helo sheekal laga helo filimka marka ma qiso ku yimid mise wax ay la filayo inay dhacaan horta filimka ugu horeyn haddii aad dadkii daawadan way arki doonaan markuu bilowdo qoraal baa jira oo waarin ah dabcan wargelin ah kama hadlaayo xaalad ka jirta dalka balse waa sheeko anaga aan qoranay isla markaana aan sameyn ujeedkeena wuxuu yahay in aan dabcan aan Soomaalida tusino in aan sameyn karno filimada dambi baarista maadaama hadda dadku inta badan macnaha waxay xiiseeyaan filimada dabcan howlgalada iyo mishinada iyo baarista iyo waxyaabahaas filimada loo xiiseeyaa markii laga soo kuwa jaceelka marka filimada in anaga ka Soomaali ahaan aan sameyn karno ayaa filimka ku tijaabinayna balse sheeko dhab ah oo xaalad dalka taagan ma ahan intaanan halka ay u ekay intaanan sii guda galan sheekada filimkaasi dambi baaris bal marka hore hordhaca filimka nala daawada